koox hubeysan oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab oo tir ahaan aan la sheegin ayaa xalay fiidkii waxay weerar ku qaadeen hotelka Maka Al-Mukarrama, Baar Hilaac UK iyo Daarta Shideeye kuwaasoo dhammaantoodba kaabiga isku haya. Ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaana ku qaadatay in ku dhawaad 20 saacadood ay ku soo afjaraan weerarkan ragga hubeysan ee ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen dhismayaal ku yaala wadada Maka Al-Mukarrama oo isugu jiray hoteelo, goobo ganacsi iyo guryo dad rayid ay deganaayeen. weerarkan ahaa kii ugu saacadaha dheeraa marka dib loo eego weerarada tooska ah ee Al-Shabaab ku qaadiyeen sanadihii u dambeeyay hoteelada iyo goobaha ganacsiga ayaa sababay khasaare fara badan oo isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur lixaad leh oo ka dhashay qaraxa. ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa ilaa iyo maanta duurkii howlgal ay ka qayb qaadanayeen ka waday agagaarka halka uu qaraxu ka dhacay iyagoo la dagaalamayay dable hubeysan oo gudaha u gashay dhismaha Shideeye oo isugu jira goobo ganacsi iyo deegaan iyo agagaarka goobta uu qaraxu ka dhacay. Dhismaha Shideeye ayaa ku dhow hotelka Maka Al-Mukarrama waana halkii ugu horeeyay ee qaraxu uu ka dhacay. Dableyda ayaana saacado badan ku dhuumaalaysanayay daartan oo iyadu ah dhismo ciriiri ah sida la sheegay. Howlgalkan oo ciidamada kala duwan ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ka qayb qaadanayeen ayaa xilli dambe oo maanta ah waxaa ku soo biiray ciidamada sida gaarka u tababaran ee loo yaqaan Alpha Group kuwaas oo markii dambe soo afjaray howlgalka qaatay muddada ku dhow 20 saacadood oo ay Al-Shabaab ku qaadeen halkaasi. Ciidamada Alpha Group ayaana ku dhawaad 5 galabnimo ee galabta waxay ku guuleysteen inay soo gabagabeeyaan howlgalka kadib markii miinooyin ay ku qaraxiyeen goobihii la sheegay inay ku dhuumaalaysanayeen ragga weerarka qaaday. Inta la og yahay tirada dhimashada ayaa waxa ay ka badan tahay 3 ruux, dhaawacana waxa uu ku sii dhow yahay 60 meeyo sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah. goobo ganacsi oo ka ag dhawaa halka uu qaraxu ka dhacay ayaa burbur lixaad leh uu soo gaaray. Mid ka mid ah ganacsatada ayaa Home Cable TV halka kula hadlay waxa uuna sheegay khasaaraha uu u geystay qaraxa goobtiisa ganacsiga. waa maasan tahay goorayada baaro 2 iyo 12 daqiiqo ayaa mar qura waxa isbedelay jawiga meeshii aan ka shaqeynay oo dhan. dukaankan Quality Point la yiraahdaa nasiib wanaag maalmo ka hor sidoo ahaa iyo maanta sidoo yahay way kala duwan tahay, laakiin ma hadda Ilaahay iska leh. shalayna Ilaahna siiyay, maanta Ilaahay ka sugaynaa. wax usri nagu ma hayso, nafta iyo maalkana waxa muhiimsan, nafta muhiimsan. marka qadarta Ilaahay waa ku samreynaa insha Allah. wax uleys haddan ay nagu hayso lama arko. hadii aad qiyaastid waxa khasaare ah oo dhaqaale oo dil soo koobkaaga horta almuhiim khasaare adduunyo khasaare ma taalo, khasaare aakhire taala. meeshan meel dhowr qof soo shaqo tagi jirtay hanti dadeedna ay taalay, maantana waa aragtaa sida ay u eg tahay. marka khasaaro hadda ma cadeyn karno oo waxaas waa ma dhihi karno, laakiin khasaaro nagu filan oo hantidii aan ku shaqaysanay baabaaday. yaa ku jiray marka dhacay 2 qof ku jirtay, anna banaankan ka joogay. 2 qof ku jirtay wiilkii oo salesman-ka ah gacantu ka go'ay, gabar kale oo xisaabiye noo ahayd iyadana dib kala gaaray, madaxa dib ka gaaray. 2 qof aan la joogtay. dadkii ka samarka ahaa dabcan wax naga gadanayeen meeshii ku leedeen. hadda meesha waxba kama hayno kuleyba. maxay ku dareensiinay shakhsiyadaada qaraxan iyo dadkii agtaada ka dhawaa qaarkood ay dhinteen, dadku la shaqeynayay dhaawacmeen? wallahi way xanuun badan tahay, haddana markasta waa samreynaa, qadarta Ilaahay ku samreynaa. meel aad ku shaqaysanaysaa usoo shaqo tagaysay, subax kasta u shaqo tagaysay oo aad biilkaaga ka raadsanaysay, markii ay sidaan isku bedesho waa dareemi kartaa mataqaana niyadaada. haddana islaam aan nahay, markasta samaraan nala faray, waa ku samreynaa qadarta Ilaahay, dhibna ma lahan. goobtan aan taaganahay waa goobtii uu qaraxu ka dhacay. dabaqan iga dambeeya waa Hilaac UK oo qaraxa ujeedkiisu ahaa sida la sheegay. dabaqan kale iga dambeeya waa hotel Maka Al-Mukarrama. qaraxa saameyn xoogan ayuu ka shaqeeyay, qaybadan ayaa burburay. sidoo kale halkan waa dabaqa Shideeye. qaraxa isla saameyn culus ayuu ku yeeshay, waa goobta uu qaraxu ka hor dhacay isna. sidoo kale waxaa jiray burbur xoogan oo soo gaaray goobaha ganacsi ee hareeraha wadooyinka iyo hotel kuweeda agaarkiisa ku yaalay. waxaana dhimashada ilaa hadda dadka ay gaaraysaa in ka badan 30 ruux, dhaawacana waxa ay gaarayaan ilaa iyo in ka badan 50 ruux. Maxamed Qays Xasan Maxamed, Home Cable TV.